idlib waa magaalo madaxda gobolka idlib ee dhaca waqooyiga suuriya. waxaa lagu naynaasaa magaaladii cagaarnayd maadaama ay caan ku tahay geedka saytuunka. tan iyo markii uu dagaalka sokeeye ka dilaacay suuriya 2011kii waxaa jiray heerar kala duwan oo ay soo martay colaadda suuriya. suuriya waxay xuduud la leedahay dowladda turkiga. kol sii horraysay turkiga ayaa baqdin ka muujiyey maleeshiyaadka kurdishka ah ee hubaysan kuwaas oo isku dhereeriyey xadka turkiga iyo suuriya. turkigu waxa uu sheegay inuu duulaan ku qaadayo waqooyiga suuriya si uu u dabar jaro maleeshiyaadka kurdishka ah ee YPG. turkigu waxa uu cabsi ka muujiyey xiir ay la yeeshaan kurdishka fallaagada ku ah turkiga ee ka dagaalanta koonfur bari dalka turkiga ee lagu magacaabo PKK. turkigu waxa uu qabsaday magaaladii kurdishka ee cifriin ka gadaal howlgal dheer oo loogu magacdaray laantii saytuunka. dowladda turkigu waxa ay haatan u diyaargaroobaysaa duulaan cusub oo ku wajahan magaalada idlib haddii aanay ruushku ku qasbin ciidamada bashaar al asad oo ay caawinayaan dayuuradaha dagaalka ruushka inay ka hakadaan magaalada idlib. idlib waxaa barakac ku ah ku dhowaad 4 milyan oo qof kuwaas oo ka soo qaxay dhammaan gobollada suuriya. sidoo kale waxaa jooga maleeshiyaadkii mucaaradka ku ahaa nidaamka asad. dowladda turkigu waxa ay diidan tahay qulqulka qaxootiga siiriyaanka ah ee ku soo firxanaya dalka turkiga. haddii uu dagaal ka qarxo magaalada dadkeedu ay qaxootiga u badan yihiin ee idlib, iyadoo ay jirto in gudaha turkiga ay ku nool yihiin malaayiin qaxooti siiriyaan ah. ciidamada siiriya ayaa gantaallo ku garaacay bara ciidamada turkigu ay ku leeyihiin baadiyaha magaalada idlib, waxaana geeriyootay 14 askari oo ka tirsanayd militariga turkiga, waxaana dhaawacantay 45 kale. turkigu waxa uu bilaabay inuu askar fara badan iyo dabaabadaha dagaalka ku soo daabulo baadiyaha idlib. madaxweynaha turkiga Erdogan ayaa sheegay in turkigu uu qiimeynayo xaaladda iyo waxyaabaha ka socda duleedka idlib. فإن هذه الهجمات bartilmaameedsaday askarteena iyo gebi ahaan turkiga oo idil. innagu dan kama lihin waxyaabaha iyo hadallada soo yeedhaya. annagu waxa aan danaynaynaa oon qiimeynaynaa waxa ka dhacaya dhulka. khubarada dhanka militariga ayaa sheegaya in baraha ilaalada ay ciidamada turkigu ka samaysteen baadiyaha idlib ay ku carqaladaynayaan horu socodka ay samaynayaan ciidamada dimashq. waa kan korneel Charlie Abinaazir oo ka hadlaya arrintaas. هذه النقاط التي يضعها الأتراك الآن في barahan ay ciidamada turkigu dhigteen deegaanka Tiftanaas iyo dhabaha idlib kaliya waxay ku carqaladaynayaan horu socodka ay samaynayaan ciidamada dowladda. wafdi ka socda ruushka ayaa jooga turkiga si ay uga wada xaajoodaan xaaladda magaalada idlib. madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in turkigu aanu ilaalin doonin ballamo dambe isagoo ula jeedo heshiisyadii uu horay ula galay dhigiisa ruushka ee Vladimir Putin.